dibadbax ballaaran oo lagaga soo horjeedo dagaalkii ka dhacay magaalada Kismaayo iyo siyaasadda dowladda federaalka ee ku aadan Jubbooyinka ayaa maanta ka dhacay magaalada madaxda Puntland ee Garowe dadkan banaanbaxayay oo socod dheer ku soo maray wadooyinka magaalada Garowe ka hor inta aysan isugu iman barxadda weyn ee magaalada waxa ay wateen boorar iyo waraaqo markaasi ay ku qoran yihiin taageeraha ay u hayaan maamulka Jubbaland iyo ka soo horjeedista ay ku dhaleelsan yihiin dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay banaanbaxaasi xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Puntland maamulka gobolka Nugaal maamulka gobolka Mudug iyo dadweynaha aad u tiro badan waxaana halkaas ka hadlay mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacel gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Tigay gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdi Xirsi Cali Qarshaf iyo mas'uuliyiin kale oo aad u tiro badan markaad maqashaan maxaad ka filaysaan horumar iyo cadaalad iyo dal dhismo laakiin maanta muxuu yahay bal madaxweynaha Soomaaliya maanta aan cabirno maanta wuxuu yahay dib baan u fasiri doonaa al-macrifatu ta'nu al-haqiqa li waxa federal kursiyadu leeyahay suuda uu leeyahay intii buuxisa waxa laga dooray dowladda federaalka inay ayito oo ay maamusho madaxda ummadana waxa laga doonayaa inta wax samaysatay inay dastuurka sidoo yahay ugu dhaqanto intii wax qaldaysana ummadda Soomaaliyeed iyo caalamka dhan ay arki doonaan hadii Ilaahayna ka dhigo waxaanu leenahay Soomaaliya noolaato iyo shucuubta labada gobol ee mataanaha ee Mudug iyo Nugaal iyo labadooda caasimadood ee Gaalkacyo iyo Garowe iyo labadooda shacabba ay ku taageerayaan xaqqa dastuuriga ay leeyihiin iyo Puntland ay ku taageerayaan xaqqa dastuuriga ee ay leeyihiin dadka gobolada Jubbooyinka iyo Gado sidoo kale waxa lagu cambaareeyay dowladda federaalka waftiga ka joogay Kismaayo oo fadqalalada iyo ka sameeyay qorshaha lagu duminayo maamulka urdinka oo hadda la dhisay aad iyo aad baan u cambaareynaa waxaanu leenahay faraha kala baxa dadka ay isku maamulaya dhanka kale waxa ay ka hadleen maanta mudaharaadayaashu dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada lagu hayo koonfurta Afrika oo ay ugu baaqeen dowladda federaalkuna inta ay ku mashquulsan tahay arrimaha Jubbooyinka inay xaaladaha dadka Soomaaliyeed fiiriso madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo shalayto galankii dambe soo gaalay magaalada Garowe ayaa isaguna waxa uu halkaas kaga dhawaaqay shalayto dagaalkii ka dhacay magaalada Kismaayo in laga soo abaabulay magaalada Muqdisho isla markaana ay dowladda federaalka Soomaaliya ku lahayd lug weyn isku soo wada duubo dadkan maanta banaanbaxayay ee magaalada Garowe ayaa dareenkooda ku muujiyay taageeraha ay u hayaan dowladda maamulka Jubbaland ee markaasi uu hogaaminayo Axmed Madoobe waxayna sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya looga baahan yahay inay maamulkaasi taageerto Cabdiraxmaan Cali Nuur Somsad Garowe.